الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن أحمد محمد محمود سيلانيو waxaa maanta soo booqday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani murashaxa madaxweynaha madaxweynenimo oo si rasmi ah maanta isaga casilay xilkii uu muddada dheer u soo hayay qarankan ee ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada isaga shir gudoonkuba si rasmi ah maanta u cilaamiyeen inay iska casileen xilka wixii process ah ama hawlaha kale baarlamaanka u taalan iyaga gudan doona gudoomiyuhu wuxuu madaxweynaha uga mahadnaqay muddadii dheereed ay soo wada shaqaynayeen wuxuuna ku booriyay in qarankani halka ka sii taabagalo madaxweynuhuna uu u duceeyay murashaxa jagada madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani ahaana gudoomiyihii hore golaha wakiilada taariikh qiimo leh ayuu qarankan kaga qoran yahay qaranka iyo ummadda Soomaaliland waxay aad ugu mahadnaqayaan wixii uu qarankan u soo qabtay madaxweynuhuna duco ayuu u duceeyay gudoomiyaha golaha wakiilada iyo murashaxiinta kale oo kalaba wuxuuna ku booriyay in danta guud ee qaranku ay mar walba mudnaanta koowaad yeelato iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa murashaxa jagada madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi afhayeenka madaxtooyadu waa mahadsan yahay sidaa uu sheegay afhayeenku maanta oo bishu laba waxaan baneeyay jagadii gudoomiyenimada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo doorashooyinkii ay noo qabsoomayaan madaxtooyadu 13 November 2017 sidaa daraaddeed maadaama qaranka muddo dheer xil u hayay waxaa soo booqday anigii shir gudoonkuba madaxweynaha qaranka oo aan ku wargelinaynay inaan baneeyay hawshaas iyo dardaaran wixii uu nasiib farayaba madaxweynuhuna kulankaasi si wanaagsan uu noogu dhamaaday waan isla fahamnay sidaan awalba wada shaqayn jirnay howlaha qaranka in looga wada shaqeeyo iyadoo mudnaanta la siinayo iyo in doorashadu insha Allah waqtigeedii ay noogu qabsoonto aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.